Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaad kusoo dhawaataan qaybta labaad ee barnaamijkii Outlook. Barnaamijka waxaanu soo sameynay 2 cashar oo kala ahaa kalendarkii iyo appointmentkii. Marka imika waxaanu sameynaynaa 2 cashar oo kale aynu soo kicisana barnaamijka. Waxaanu sameynaynaa task marka ugu horeysa. Waxaanu tegaynaa markaan xaggan kasoo doorano home tabka. New task baad leedahay. waxay isku dhow yihiin appointmentkii aan markii hore soo qaadanay. Xaggan magacaada bixinaysa haddii la yiraahdo. xaggan waqtiga aad hawsha qabanaysid iyo waqtiga dhameynaysid baad ku qoraysaa. Imika maad bilowday maad ku dhex jirtaa mise maad bilaabin cid baad sugaysaa. Waxaa adigu waxyaalahaas aad iska dooranaysaa haddii xaaladaadu tahay hadba ku salaysan tahay. Marka imika waxaan bilaabin bay ka dhigan tahay. Marka low mise halkaa normal taa ku dayada. Marka intaad samayso control iyo s taabo save garaysa marka. waxyaalaha ku aragnaa today maanta waxaad samaysay taska ama magacaas aynu bixinay taas inoogu qoran informationkiisa dhamaystay duration timeka ama waqtiga uu bilaabmayo iyo waqtiga uu dhamaanayo waxaasoo dhan xaggan aad helaysaa. Sidoo kale haddii aad rabto inaad iska dhiirigelisid sidii kuwa hore umaad samaynaysaa right click ka bacdina delete taabo. Haddii aad doonaysid inaad iyagana samaysid notice waxa loo yaqaano soo dooro ishan soo furo ka bacdina notes ka dooro waxaad tagtaa halka loo yaqaano home new note. u bixisa magacaad doonaysid laakiinse waxaad ku qoran doontaa word kooban oo aad ugu talagashay inaad xasuusin oo kale aad u isticmaashid. Marka qoraalkaaga dhamaysatid waxaad ka bedeli kartaa midabka oo kale tusaale ahaan hadaad tagtid homeka gaar ahaan tagiskan midabka aad doonaysid oo categories waxaad nooga dhigtaa blue baroonkaaba ka dhig okay dhamaha. waxaa midabka yar gaarkaaba ku yeelanayaa haddii aad mouskaaga dul saartidna fariintii ama xasuusintii qoratay ayaa kaaga soo baxaysaa. haddii aad rabto inaad dhiirigelisid sidii kuwa hore samaynaysaa right click dadna delete dana right click delete baad dooran doontaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.